dembiile oo ah eedaysanaha koowaad maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo u cuskatay qodobka 434 xeerka ciqaabta guud iyo aayadda 45 ee suuratul maa'ida. maxkamadda ciidanka darajada koowaad oo maanta dil toogasho ah ku xukuntay allah u naxariistay gaashaanle dhexe oo lagu dilay degmada maxamuud haybe bishan dhexdeedii ayaa maanta waxaa la xukumay 2 eedaysane. eedaysanaha koowaad ee dilka geystay oo lagu xukumay dil toogasho ah waxaana lagu xukumay qodobka ah 344 xeerka ciqaabta guud. sidoo kale waxaa la xukumay isagana eedaysanaha labaad oo isaguna mataqaanaayay sameeyey mataqaanaayay caawin ama ninkan wax dilay ku caawiye marxuumka dhintay Allah u naxariistee. haddaba maxkamadda darajada ciidanka koowaad ayaa maanta mataqaanaa xukunkaasi maanta bishu ahayd 22 bishii 2025 ku ritay xukunkaasi. haddaba adigana daawada xukunkaas sidee baad u aragtaa commentigoosna ugu qor aad ba ugu mahadsantihiin. channel kale subscribe noo saar adaa ku cusub tahay sidoo kale like aad baad ugu mahadsan tahay wixii fikiraya oraahna commentigoosna ugu qor muuqaalka like aad u wanaagsan tahay. هذا معلومة أصحاب تقارير سود وهذا وحنا رنابل إن المتقنا فكر كني أراه إن إنه كذي بنو سلو دل كاسي أودعي مو كقنا السنين لبض هذه السنة دل كاسي متقنا منه وحلا وحكم يستطيع تمسنا أو حريقة من الدل توجش على وحكم قصاصة سيدا لو حكم الشيء سورة المائدة شرعية أفرتن آيات الشرعية أفرتنات لو حكمي بلادبا gaashaanle ayayno amaba mataqaana ciidamada maxkamadda darajada koobaad oo xukunkan maanta ridibaan bal asxaabta qaaliga waxa la sadaawno. dembiile oo ah eedaysanaha koowaad maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah iyadoo u cuskatay qodobka 434 xeerka ciqaabta guud iyo aayadda 45 ee suuratul maa'ida. الرحمن الرحيم جمهورية Somaliland maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobolada galbeed maanta taariikhdu tahay 22 bishii 2025 maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee gobolada galbeed waxay ku dhawaaqaysaa dacwadda labadan eedaysane ee maxkamadda hortaagan loo haysto kuwaasoo eedaysanaha koowaad lagu soo eedeeyey qodobka 434 xeerka ciqaabta guud oo macnaheedu yahay dil kas ah halka eedaysanaha labaadna lagu soo eedeeyey qodobka la yiraahdo 298 xeerka ciqaabta guud oo eedaysanaha koowaad waxa uu raacsan eedda 434 aayadda 178 ee suuratul baqara oo isla qodobkaasi wuxuu sheegaysaa labadan eedaysane markii eedda loo akhriyay labaduba way qirteen eedda lagu eedaynayo horeyna maxkamadda ciidamada ayaa labadaba qiraal lagu qortay in dembiyada lagu eedaynayo ay galeen waxayna maxkamaddu dhageysatay 4 markhaati oo xafiiska xeelaalintu ciidamadu hor keenay maxkamadda iyo baarihii kiiska Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ilaahi baa weyn oo waahida ilaahi baa cadaaliya balse waxa la oran karaa waxa halkaasi ka dhacday cadaalad tii ugu sareysay ciidanka maxkamadda ciidanka darajada koobaad oo maanta xukunkaasi ku dilay gacan ku dhiilihii dagar qabihii ku dilay gaashaanle sare degmada maxamuud haybe isagii maanta waxa leeyahay Allah u naxariisto ummadii iyo mataqaana ummadii qarankii uu ka baxay ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo saadiqa runtii arrimahan mataqaana loo oran karo waa arrin markii koobaad dhacday marar badan bay dhacaan dilka noocan oo kala balse mataqaanaayay waxa qurux badan qof kasta dambiga uu kala ciqaabtiisii in lagu qaado. maxkamadda ciidanka darajada koobaad maanta waxa la oran karo waxay sameysay cadaaladii ugu sareysay xukuumaddu garwadeenka ka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro xukuumaddan cusubina waxa durba kowsatay
iyo waliba ay markii ugu horeysay ay wax ka qabad mataqaanaa kii ugu qurux badnaa ka qabatay dadkii dilka foosha xun lagu geystay gaashaanla sare degmada maxamuud haybe haddaba laba eedaysanay haayeen waa eedaysanaha sidoo mataqaanaa kaga dhawaajiyay maxkamaddu eedaysanaha koobaad oo ay ku xukuntay maxkamaddu xeerka ama qodobka 434 xeerka ciqaabta guud oo ay ku xukuntay dil toogasho oo ka soo noqosho lahayn mar haddii dil toogasho la xukumo xaq ilaahay baa dhacay sadoo dugsiga saabta qaaliga runtii isku diigan waxa la yiraahdaa mataqaanaa dil bareer baa la yiraahdaa oo meel loogu soo gabada in lahayn kasabo hadilkaasi haddana gacanta lagu hayaa insha Allah waxa la horgeyn doonaa mataqaanaayay waa la qisaasi doonaa maradii maxkamadda xukuntay waxaan sugnaa waa dilkii meel fagaara hadda waxaan leenahay ninka maanta dhabanahays iyo mataqaanaa shalayn badan buu dareemayaa balse ninkii mataqaanaa qadartu ku dhacday isagu de waa aakhiru ba jooga Allah naxariisto waanu ducaynaynaa sawiriibaana intii ka baxaa laga siiyo eedaysanaha koobaad marka intaasi lagu xukumay dil toogasho wactaadba dilkan shakhsi ka caawiyay oo mataqaanaa waxa la yiraahdaa dilkan oo kale mataqaanaa fudaydiye baa la yiraahdaa fudaydiye maanta dad rabto qof inaad ama meel samayso ama mataqaanaa wax samayso de waxdu baahanaysa qof ku fudaydiya haddaba eedaysanaha labaad isagu waxa lagu xukumay qodobka 482 iyo xasan maleeriya oo isaguna mataqaanaa caawiye ama assistant oo u fudeeyay si uu dilkaasi qaandilaasi ugu geystay gaashaalaha kuna fuwaay marxuumka la naxariisto eedaysanaha labaad waxa ka maxkamadda ciidanka darajada koobaad ay ku xukuntay 13 sano oo xariga 13 sano oo xariga balad waxa kumatiyo ku soo qortaa ninka inta lagu xukumay xilli uu ka soo bixi doonaa xabsiga waa xilli aniga tusaalahaan ay laba madaxweyne isbedeleen oo waliba ay mataqaanaa waliba 7 sano oo waliba wax ku sii darsan laba madaxweyne haddana madaxweynihii koobaad baa maanta ay 3 bilood dhamaanaysaa adoo markaas ku wada geeyno waxa uu ka soo baxayaa ninka maanta lagu xukumay maxkamadda ku xukuntay 13 sano oo xariga 2038 inna lillahi raaji'un ilaahay uu nagarso caafad nagu gaarsii anagoo faraha iyagu mataqaanaa caana ku jiraan faraha iyaga caana saa ugu jiraan ilaahay nagu gaarsii 2038 dadna 38 waxa lagu gaarsiinay iyagoo faraadii kula jira subhanallah haddaba maanta maxkamadda asaas u dhacday sidaad ka arkiseen maxkamadaynta labada marxuuna way ku qanceen mid walbana waa qirtay halka eedaysanaha labaad ay u furnayd sidoo kaga dhawaajiyay inuu rafcaan qaato oo mataqaanaa maxkamadda wax ka codsado una ka codsanina waxa la oran karaa waxa dhacay xaq baa dhacay